ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin madaxda guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo ayaa waxay booqdeen beeraha gobolka Faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida oo lagu beero qamadiga. Asma Maxamuud ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Mas'uuliyiin uu horkacayo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa booqday dhul beereedka qamadiga ee Tulu Guuleed ee gobolka Faafan. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa bogaadiyay wax soo saarka beeralayda gobolka Faafan isaga oo sheegay qamadiga ka baxa beeraha ku yaala gobolka dowlad deegaanka Soomaalida uu anfacaad u leeyahay shacabka Itoobiya iyo guud ahaan dalalka deriska la ah Itoobiya. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo geestiisa ka hadlay kulanka ayaa sheegay in laga mari dhalinayo qorshaha dalag iyo daryeel oo lagu xoojinayo wax soo saarka gudaha sifa loogu maarmo taageerada shisheeye waa sida uu hadalka u dhigay. Ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa booqashadiisa waxa ku weheliya xubno ka tirsan guddiga fulinta xisbiga barwaaqo ee Itoobiya. Dr. Abiy Ahmed ayaa toddobaadkan soo gaaray caasimadda Jigjiga si uu uga qayb galo shirka xisbiga talada dalkaasi haya ee barwaaqo.